al-shabaab ayaa xubno badan oo ka mid ah ciidankooda waxa ay soo dhoobeen wadada xiriirisa degmooyinka Balcad iyo Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Dadka deegaanka ayaa ku soo waramaya inay arkayaan xubno badan oo ka mid ah al-shabaab kuwaasi oo saacadihii la soo dhaafay lagu soo daadgureeyay deegaanada u dhaxeeya Jowhar iyo Balcad. Al-shabaabkan ayaa la sheegayaa in ay wataan gaadiidka gaashaaman kuwaasi oo isku sii fidinaya deegaanada u dhaxeeya labadaasi degmo. wararka laga helayo gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in geesta kale ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa daraawiishta Hirshabeelle dhankooda ay wadaan dhaqdhaqaaqyo ciidan oo xoog leh oo ay kaga hortagayaan al-shabaabkan isarursanaya. waxaa aad loo adkeeyay ammaanka degmooyinka Balcad iyo Jowhar oo iyana ay ka bilowdeen dhaqdhaqaaqyo ciidan oo xoog leh. Jowhar waxaa saldhig ay u tahay maamulka Hirshabeelle waxaana ku shaqeeya madaxweynaha iyo sidoo kale golihiisa wasiirada ee maamulka Hirshabeelle. xaaladda ayaa mar waliba isu bedeli karta mid dagaal maadaama marba mar ka sii dambeysa ciidamada labada dhinac ay isku sii siqayaan. horey waxaa u jirtay in al-shabaab ay u qabsadeen deegaano u dhaxeeya Balcad iyo Jowhar kadib markii ay ka baxeen ciidamadii Burundi ee ku sugnaa sida deegaanka Xawaadley oo markii ay ka baxeen ciidamadaasi ay gudaha u soo galeen cutubyo ka tirsan ciidamada kooxda al-shabaab. internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah ku hadal iyo IPTV ula socda receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal. internetka guryaha ku shubo $25 oo hel internet xawaarihiisu yahay 20 megabyte per second iyo 200 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah ama ku shubo $30 oo hel internet xawaarihiisu yahay 30 megabyte per second iyo 200 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah. internetka xafiisyada ku shubo $50 oo hel internet xawaarihiisa uu yahay 55 megabyte per second iyo 400 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah ama ku shubo $90 oo hel internet xawaarihiisa uu yahay 110 megabyte per second iyo 700 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah.